السلام عليكم saaxiibayaal kadib markaan isla soo aragnay 25 nabi ee quraanka lagu sheegay hadda waxa aan bilaabeynaa arbacatu khulafaa ur-raashidiin waxaan u wadeynaa sida ay isugu xigxigaan waxaan maanta ku bilaabeynaa insha Allah Abu Bakr as-Siddiq kusoo dhawow taariikhdiisa waxa lagu magacaabaa Abdullah ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b oona ahaa Quraysh waa saaxiibkii ugu dhawaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku ugu horeeyay khulafaa ur-raashidiin waa shakhsi aad loogu yaqaanay doorkiisa muhiimka ah ee taariikhda islaamka gaar ahaan sidii uu u taageeray nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo hogaamintii uu qabtay kadib geerida nabiga waxa uu ku dhashay magaalada Makka sanadii 573 miilaadiga Abu Bakr waxa uu ka soo jeeday qoys sharaf leh oo Quraysh ka tirsanaa waxa uuna ahaa ganacsade guuleysta oo sumcad ku leh bulshada Makka dhaxdeeda markii uu nabiga ku dhawaaqay nabinimadiisa Abu Bakr waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee qaata diinta islaamka kadib Khadiija oo ahayd xaaska nabiga taasina waxa ay muujinaysaa kalsoonidiisa iyo jaceylkii uu u qabay nabiga iyo diinteena islaamka Abu Bakr waxa uu si weyn u taageeray nabi Muhammad wuxuuna ka taageeray dhammaan marxaladihii dhibaatooyinka oo xanuunka lahaa wuxuuna sidoo kale ku bixiyay maalkiisa taageerida dacwada islaamka iyo xureynta adoomaha muslimiinta ah markii muslimiinta la amray in ay u haajiraan Madiina Abu Bakr waxa uu la haajiray nabiga safarkoodana waxa uu la xiriiray qisadii caanka ahayd ee ku saabsaneed markii ay ku dhuumanayeen godkii si ay ugu badbaadaan reer Quraysh Abu Bakrna waxa uu ahaa qofkii markaas la joogay nabiga Abu Bakr waxa uu noqday khaliifkii ugu horeeyay ee muslimiinta kadib geeridii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sanadkii 632 miilaadiga hogaamintiisana waxa lagu tilmaamaa mid adkeysi iyo go'aan qaadasho ku dhisan inta uu xilka hayay Abu Bakr waxa uu la dagaalamay qabaa'iladii diiday in ay bixiyaan zakada iyo kuwii ka soo laabtay muslimnimada kuwaas oo loo yaqaanay ahlu ridda wuxuuna ku guuleystay in uu mideeyo bulshada muslimiinta uuna xakameeyo jabhadahaasi sidoo kale Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waxa uu sidoo kale amray in quraanka ururin lagu sameeyo oo la qoro si looga hortago in la ilaabo quraanka tanina waxay ahayd tilaabo muhiim ah oo lagu xifdiyay quraanka kariimka Abu Bakr as-Siddiq waxa uu dhintay sanadkii 632 miilaadiga isagoo jira 63 sano waxaana lagu aasay meel u dhow nabiga qabrigiisa Abu Bakr as-Siddiq Allah ka raali noqday waxa uu ka tagay dhaxal aad u weyn oo taariikhda islaamka mug weyn ku leh maadaama uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee nabiga raacay oo u fidiyay taageero maaliyadeed iyo mid muuqda isla markaana ku guuleystay in uu mideeyo bulshada muslimiinta uuna ka dhigo mid xoog leh Abu Bakr as-Siddiq waxa loogu yeeray oo loogu magac daray waxa uu ahaa mid mar walba rumeeya fariinta nabiga iyo dhacdooyinka waaweyn sida Israa wal Mi'raaj sidaas aaweeda waxa loogu magac daray as-Siddiq Abu Bakr waa tusaale muuqda oo ku saabsan hogaaminta iimaanka iyo xishoodka waxa uuna ahaa saaxiibka ugu dhow nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo mid kamida ragii ugu waaweynaa ee islaamka difaacay sarana u qaaday maadaama hogaamintiisa iyo howlihii uu qabtay ee wax badan ka geysteen aasaaska islaamka Abu Bakr as-Siddiq waa haliyay ku dayasho mudan oo muhiimad weyn ku leh taariikhda islaamka iyo ummadda muslimiinta allana ha ka raali noqdee